السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isagoo cambababaygu ka mid ah khudaarta aynu aadka u isticmaalno haddana waxaa jira midhaha cambababayga ama iniyaha dhexda ugu jira cambababayga ayaa iyaguna ah shay kale oo cajiiba dadka qaarkoodna oo ah dawada keliya ay isticmaalaan waxaa ku jira midhaha cambababayga faytamiino aad u badan inkastoo midhahani ay yihiin midho aad u qadhaadh haddana waa midho waxtarkoodu aad u badan yahay waxaa ka mid a waxtarka midhahan waxay dawo ka yihiin qaar ka mid a xanuunada ku dhaca beerka gaar ahaan xanuunka la yidhaahda cagaarshowga waxaana lagula taliyaa dadka midhahan ku daweynaya xanuunkaas in wax yar oo ka mid a midhahan oo shiidan iyo wax yar oo ka mid a biyaha laga toojiya liin dhanaanta inay isku daraan kadibna cunaan hal malqaacad maalin kasta muddo bila dhinaca kalena midhahan waxaa lagu sheegay midhaha ugu fiican ee jidhka ka saara sunta iyo cayayaanka ku dhasha caloosha sida gaardalaambiyada iyo wixii la mid a waana in malqaacad yaroo midhahana oo aad shiiday kadibna aad ku darto wax yaroo malaba aad cunto maalin kasta hal malqaacad muddo 7 cisho waxaa kaloo midhahani dawo ka yihiin bakteeriyada ka dhalata qaniinyada kaneecada iyagoo jidhkana dawo uga ah noocyada kala duwan ee infekshanka waxaanay ka hortagaan xanuunada ku dhaca lafaha gaar ahaan markay dadku waaweynaadaan ugu dambeyntiina dumarka uur kale waxaa lagula taliyaa inaanay isticmaalin midhahan ilaahayna sida saxda ah ayna waafajiyo وأجب نداءات السماء أوقف فؤادك هاهنا وامسح عن الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء